السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayaan idin salaamayaa qaraabo maanta waxaan soo sameynay ila daawada maanta waxaan soo sameynay sababtaan rabnay inaan u soo sameynay faa'iidada ku jirta waxa aan sameynay akhyaaray waxaan ku iri sidii cudurkani u bilaabmayba guri lagama baxo waa la iska fadhiyaa been idiin sheegi maaye madax xanuun iyo jir xanuun iyo waxaan ku gebigaagaba stress ba waxa laga qaadaa guri ku jirid maalintii haddaad hal mar banaanka u baxdo oo waxoogaa hawo fresh soo qaadato oo maskaxda oxygen soo siiso waxa ay ku taraysaa wax aad u fara badan caafimaad aad u fara badan oo la soo koobi kareynin anigu been idiin sheegi maaye muddo imika dhowr cisho ah guriga kama bixin kadib jirkaygu wuxuu dareemay inaan xanuunsanayo xumad baan yeeshay fara badan yacni qandho waxaan yeeshay madax xanuun fara badan gebigayga dhanba waxaan siri waad xanuunsanaysaa yacni dareenka markuu qofku jirkiisu xanuun kusoo jiro oo kalaan yeeshay maanta deedna waxaa noo soo baxday qorax macaan fiican qurux badan kulul maasha allah sanadka maalintii ugu horeysay ee kuleyl sidan aanu dareennay weeye maasha allah kadib waxaan go'aansaday inaan waxaan ku idhi kabahayga juf isku siiyo ciribta ku dhufto waan dhaqaajiyey xaggee baan tegay marka ma intaad iska socoto magaalada iska dhex warwareegtabaa ma inaad waxaan ku idhi dukaamadii halkaa iska tagtagto oo dadkii iyo buuqiyo wixii dhex tagtabaa mise waa inaad waxaan ku idhi hawada freeshka ah nature-ka waxyaabaha dabiiciga ah nafta u roon qalbiga u roon jirka u roon aad raadiso waxaan go'aansaday inaan dhaqaajiyo wadadaa qabsado waxaan ku idhi dhulku weli green fara badan cagaar fara badan kamay soo bixin imika dhowaan unbu qabowgi naga kacay sababto qabow aada fara badan iyo baraf iyo waxyaabo badan baa jiray alxamdulilah imikuu naga dhammaaday dhowaanahan dhulkii wuu soo cagaaroobayaa qoraxda way soo baxday jawigu wuu fiican yahay caagadaydaasaan biyo ku shubtay baraf ku gurtay waan dhaqaaji xaggaan tegey badda ayaan tegey badda agteeda waxa yaala kuraasi maxaan ku idhaahday qofkii raba uu ku gariilaysan karo hilibka yacni ku salon karo magaalada aan deganahay alxamdulilah bad baa dhinac kasta ka xigta oo buuxda wadadaa dheer baan qabsaday imisaan socday 20 daqiiqo oo sii socda hadhow markaan soo noqdayna 20 kale waa 40 daqiiqo yacni waa asxaabi markaad doonayso inaad hore u bixin oo aad doonaysid inaad bilowdo raalli ahaada guriga agteeda laga dhisayaa markaa sanqadh fara badan baa baxaysa markaad doonayso inaad bilowdid socod training waxay doontaa ha ka bilaabin halka ugu faraha badan waxaad ka bilowdaa halka ugu yar inta ugu yaraad socon kartid haddii kaleeto maalin kaliya haddaad 5-6 saacadood socotid berri waad daalaysaa waad nacaysaa socodkii markaad shalay socotay 30 daqiiqo maanta 40 ka dhig berri 50 ka dhig wiiga dambe saacad soco sidaas ayaa wax waliba waxaan kuugu hagaagayaa noloshu waxa ugu yar in laga bilaabo waan idin salaamaya